هذا العنصر دوينا مشرح عبد الرحمن علي البير وموسى فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وهرين محمد علينا يا إله سبحانه وتعالى ويوافجي قدهان نوافجي إن الحق كان سكون مانو حندوني يا وهرين قبل الله سيدنا وسلامه حزبك سناتا أناتا من مولنتا سمو anigoo ka bilaabaya gudoomiyaha gudoomiye-ku-xigeenka guddiga qabanqaabada doorashada xoghayaha garabka haweenka garabka dhalinyarada bahda saxaafadda guud ahaan qof walbo mansabka iyo magaca ku fadhiyo ayaan ku salaamaya. bacda salaam haddii asakiina maro magacayga waa cabdiraxmaan cali beerwa muuse lagu naanayso isla macow. hooyaday magaceeda waxaa la yidhaahdaa cabdi xasan cali. anigu waxaan ku dhashay gobolka banaadir sanadka 89. waxbarashadeeda asaasiga ilaa iyo heerka maanta aniga aan taagana waxaan ku qaatay inta badan magaalada muqdisho. waxaan ahay professor haysta 4 shahaado oo kala duwan. waxaan haystaa shahaadada bachelorka maamulka iyo maareynta oo business administration lagu yidhahdo afka qalaad. waxaan ka diyaariyey master degree oo ah HRM Human Resource Management. waxaan kaloo haystaa oo aan diyaariyey kulliyadda macalinimada gaar ahaan department biology and chemistry. waxaan ka diyaariyey iyaduna master oo ah nutrition anigoo raadinaya anoo og gaajada iyo macaluulka waddanka ka jira ayaan u qaatay maadadaas. CV-gayga ayaan kusoo xusay iyo codsigayga waxaan u gudbiyey guddiga doorashada. qof waliba markaa tixraacayga iyo waxbarashadeeda wuxuu ka arki doonaa insha allah CV iyo buug aan soo saari doona bilaay. waxaan gudageli doonaa marka waqtiunahay awgiisa dhinaca iyo waxqabadka iyo sida aan uga codsanayo xildhibaanada sharafta leh oo maanta halkaan jooga sida aan inay soo dhaweeyaan arjana insha allah. waxaan ku bilaabayaa hadal soo jeedinteeda. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan hortiina ka soo muuqdo anigoo soo jeedinaya waxqabadkayga. haddii ilaahay calaf iigu daro jagada aan u tartamayo waxaan ballan qaadayaa inaan waxqabad dhab ah la imaan doono oo aan iska hadal ahayn. waayo qofka qool ka sax aan lahayn ama qool sax aan lahayn waa geed qolofka ka dhacay. xaqiiqatan aad bay ii farxad gelinaysaa kalsoonida oo aad codkiina igu siinaysaan idinkoo ku qanci doono waxqabad dhab ah oo aan la imaan doono. waxaa noqon doonaa kala ma dhici doonto inaan qable u shaqeeyo iyo shaksiba. waxaad igu aamintaan kalsoonidiina iguna doorataan insha allah. idinkoo ilaahay kala saaranayo waxaan hubaa inaad aflahi doontaan oo na farxi doontaan insha allah. way dhamaatay xilligii aad walwalaysay siyaasi oo hadal idinku qanciya kadibna ballanqaadkiisa aan ka soo bixin sidii hore loo arkayba waddankeena Soomaaliya. maanta waxaad haysataan fursad oo aad igu doorataan idinkoo og waxyaabo badan oo ay inaga maqan yihiin si aan u soo dhiciyo wax kasta oo xuquuq ah oo ay ka maqan yihiin xisbiga. walaalayaal waxaan isku dayi doonaa inaan u shaqeeyo sida qofka haya xilka ugu sare ee dalka. waayo waxaan xil iska saari doonaa qof kasta oo muwaadin ah inuu helo waxa uu xuquuq u leeyahay. waxaan ka damqan doonaa qof kasta oo laga gardaran yahay.
shaqooyinka aan ku ekahay markii aan xilkan qabto gaar ahaan xisbiga. Inta haddaan ka hadlayo waxay ahayd si guud, laakiin waxaan rabaa xogahayaha shaqada laga rabo inaan idin soo bandhigo si sharci ahaan iyo aqoon ahaanba. xogayaha sharciga laga rabo ama shaqada laga rabo oo aniga qaban doono waxaa ka mid ah number 2 hubinta shirarka in si hufan loo abaabulay. number 2 ilaalinta diiwaanada wax ku oolka ah iyo maamulka. 3 ilaalinta shuruucda sharciga iyo dukumentiga xukuumadda sharciga samafalka sharciga xisbiga iyo wixii la mid ah meesha ay ku habboon tahay. 4 isgaarsiinta iyo xiriirka mas'uuliyadaha ugu waaweyn ee xogayaha. hubinta number 5 hubinta in shirarka si habsami leh loo abaabulay. 6 xiriirka la yeelanayo guddoomiyaha si loo qorsheeyo kulamada. 7 ka qaadista qodobada ajandaha xubnaha guddiga. 8 soo gudbinta ajandaha iyo warbixinada. 9 qaadashada daqiiqado haddii uusan jirin xogaaya daqiiqad. 10 wareejinta daqiiqadaha la ogol yahay ama la ogolaaday. 11 hubinta in tallaabooyinka lagu heshiyey la fuliyey. 10kaas ama 11kaas qodob waxay ahayd shaqada aan qaban doono insha Allah. hadda waxaan dareemayaa xisbiga qanalaasiyo xogaayihii soo waday waqti badan uu soo waday meel fiican uu soo gaarsiiyey. sidaan dareemayna hadda hal qofood iyo 2 qofood ayaa shaqada xisbiga dhan qabta. waxaan rabaa xogayaha haddii aan nasiib u helo inaan kala nadaamiyo howshaan. hadda waxaa qabta shakhsiyaad oo isxilqaamay, laakiin waxaan rabaa ani ahaan inaan isxil saaro meel dheer la gaarsiin xisbiga insha Allah. ugu dambayn walaalayaal, waalidiinta, walaalaha, waxaan idinka codsanayaa inaad isiisaan codkiina. waxaan codsanayaa inaad isiisaan codkiina. waa huwa codkiina waa heli doonaa, idinkuna waa filixi doontaan insha Allah. walaalayaal, waxaan idinka codsanayaa inaad isiisaan codkiina si aan u gaaro yoolka xisbiga. xilkaan uma qabanaayo inaan ku gaaro dan gaar ah, ee waxaan ku doonayaa inaan ku qabto dan guud oo anaga dhan aan wada ognahay. waxaad ka dareemi kartiin shucuurteeda iga muuqata. xaqiiqatan sida aad dareemaysaan shuruudaha xoghayaha qofkii buuxiya ayaa doorashada ka qaybgeli karin. maanta haddii aan awoodayo inaan xisbiga qarash ku bixinayo, dib u fikir. maxaa u malayn kartaa inaan xisbiga xoghayihiisa isku soo sharxay? lacag doon ma ihi, sumcad gaara kuma raadinayo. waxaana waa walaalahayga wax ka maqan inaan usoo dhiciyo anoo u maraayo sharciga ay dastuurka u degan xisbiga. waxaan khibrad u leeyahay hogaaminta iyo dhowrista ammaanada. ammaanada ay u amintaan waxaan diyaar u ahay inaan ilaaliyo. xogahaye ma ahan wax iskaga dheeldheel ah, ma ahan hore lagu soo degdego. anoo aanin dhalinyaro ah oo caafan isla markaana doonaya in dadkiisa wax u qabto, waxaan idinku kalsooni gelinayaa ammaanada ay dhiibtaan inaan ilaalin doono. aan igula xisaabtantaan xitaa maxkamadda ay soo saartaan haddii qaldiga dhaco. waxaan ku dadaali doonaa midnimada, nabadda iyo wada shaqaynta wanaagsan anigoo raacaya dastuurka iyo sharciga u degan xisbiga iyo midka dalkaba. hadafkeedu waa isku tiirsanaan, wada tashi, cadaalad iyo sinaan. waxaan ballan qaadayaa in aan bixin doonin xogta xisbiga lagu aaminay. waxaan ka shaqayn doonaa xisbiga in uu noqdo midka dalka iyo dadka hogaaminayo, oo noqon doona midka ugu sareeyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarayaashaba in laga heli doono biidnillaahi alkariim. xisbiga ayaan ku dadaali doonaa anoo kaashan doono cilmiga ilaahaysiiye iyo ducadiina insha Allah. waxaan aqoon u leeyahay 3 qodob oo maanta adduunka loogu shaqaysto. gaar ahaan waxaan macallin ku ahay 2 qodob sida Ingiriiska iyo Carabiga oo ah xiriirka caalamka maanta lagu soo jiito. walaal aqoon la rabaa, waxaa loo baahan yahay khibrad idinkaan oo haysiin
aqoontii haddaan hayno khibradda iyo wadatashiigana wuxuu ku dhex jiraa xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta meesha fadhiya oo khibraddoodii xitaa maanta ma u tartamaayo aniga mana la tartamaayo Professor Saciid Sadex lama tartamaayo waxaan rabaa shucuurta iyo waxqabadka aan rabo inaan soo bandhigo waan huwa professorku waa ii khibrad badan yahay waa huwa professorka in maanta uu mudan yahay in taalada loo saaro isla markaa la siiyo la caleema saaro mudan yahay laakiin dastuurkii sharciga xisbiga u deganaa raacayna professorka waxaan leeyahay mahadsan professor haddaan adiga guulaysato waa anoo guulaysane haddaan adiga guulaystana waa adiga aan guulaysatay waxaan rajaynayaa insha allah haddaan xilka qabatay inaan kula shaqeeyo haddaan xilka qabtana inaa ila shaqaysid khibradaada ka faa'iidaystay wasalaamu calaykum waraxmatullahi مدن مشرح عبد الرحمن علي الغرب وما سيهي